إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، موضوع aad maqlayseen oo ah barbaarinta cunuga wanaagsan ama ciyaalka saalixiinta ah ama caruur wanaagsan waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah, khaasatan waqtigan aan joogno. runtii mowduucaas marka laga hadlayo waxaad dareemaysaa maanta inuu yahay mawaadiicda ugu muhiimsan oo ugu waaqicisan muxaadarooyinkeenna. muxaadaradaas waxay ku baysgaraysan tahay xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam uu imaamu muslim wariyey saxiixiisa, oo uu nebigu leeyahay: wa ina liwaladika calayka xaqa, cunugaagana xaq buu kugu leeyahay. cunugaagana xaq buu kugu leeyahay, nebigu leeyahy sala allahu alay wasalam. muxaadarada insha allah waxaan ka hadli doonaa 4 arrimood. waxaan ka hadli doonaa xuquuqda cunugu uu kugu leeyahay intaadan dhalin ka hor, iyo xuquuqda cunugu marka uu dhasho uu kugu leeyahay. waxaan kale oo ka hadli doonaa marxalo ama ama age cunuga da'diisa ugu muhiimsan, oo da'daas oo laga bilaabo 2 sano ilaa 10 sano laga gaaro saad cunugaaga u tarbiyayn lahayd. waxaan marka ugu dambaysa ku soo gunaanidaynaa talooyin ama naseexooyin qofka waalidka ah cunugiisa siduu ula dhaqmi lahaa ku saabsan. ikhwaani, waxaad ogtihiin haddii aan maanta idin weydiiyo su-aal, haddaan isweydiinno qof walowba cunuga aad dhashay habkii aad ku dhashay iyo procedurkii cunugaas uu ku dhashay meeqaybay kugu qaadatay inaad cunugaa heshid. qof kasta haddii su-aashaa isweydiiyo wuxuu arki doonaa taariikh dheer oo taariikh nololoodkiisii ka mid ah oo uu soo maray intuusa cunugaa dhalin. wuxuu dhihi doonaa: guur baan damcay, qofaan guursadaan raadiyey, lacag baan urursaday, odayaal baan u diray gabadhii reerkoodii, aroos baan dhigtay, gabadhii baa la ii nikaaxiyey, waan la aqalgalay, way uuraysatay, uurkiibay ku jiratay, mantag iyo xanuun iyo isbitaal iyo intaasuu ku jiray 9 bilood. waana midda ilaahay uu ku magacaabay wahnan calaa wahnin, waa culays iyo dhibaato ilaa cunuga uu ka dhasho. qof kasta taariikh dheer buu soo maray, intaasna cunug buu raadinayaa. marka cunugii dhashay waan ku bishaaraysanaa, waan ku farxaynaa. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay: almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati اddunya. caruurta iyo maalku waa quruxda adduunka, waa lagu farxaa. qof kasta marka cunugu dhasho wuu ku farxayaa. dhibkii kaama harine, cunugii waad korinaysaa, umul baad la gelaysaa. aabbaha laftiisa dhinaca buu umul ka yahay oo dhibkiibaa haysta, isbitaal buu u qaadayaa, habeenkiibuu kugu soo jeedayaa, waad korinaysaa ilaa uu ka gaaro cunugii wakhtigii uu ku fahmi lahaa oo aad wax u sheegi lahayd, ood wax bari lahayd. cadaalad miyaa marka
masama waxaa ku jirtaad u maleynaysaan xikmad cunugii intaasoo dhib ah aad u soo martay markii uu caqliyeystay oo uu soo koro inaad cartoon iyo TV iyo intaad ku tuurtid meel kale aad adigu faraha ka qaadid ma caqli ba tusaalahaas wuxuu la mid yahay nin guri dhistay oo kale oo qurxiyay oo deyn qaatay oo kuraas dhigay oo daahiyo ku xiray oo markuu wax walba dhameeyay kuraas wax walba uu dhigay albaabada intuu u ballaqay yiri mukulaalaha iyo eeydu guriga ha ku ciyaareen oo ha dageen saasuu la mid yahay sababta cunugaad intaa soo korinaysay baa TV iyo cartoon iyo school public school kaliya aad ku fasaxday ood ku sii daysay waana mid ay ku magacaabaan culimadu wa idha almaw'udatu su'ilat ayu soo galaya cunuga waa la dilay cunugaas camal waa la dilay wuxuu quraanku noo tilmaamayaa dadka caruurta dhalay inay u qaybsamaan laba qaybood qolo ciyaalkaas ilaahay uga dhigay imtixaan iyo fidno iyo cadow uu uga dhigay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna caruurtiina iyo maalkiina waa fitan waa dhibaato inna min azwaajikum wa awlaadikum caduwan lakum xaasaskiina iyo caruurtiina waxaa ka mida kuwa cadow idiin ah baa ka mida cunugaagiyo cadow kuu noqday ka waran oo dhib kugu noqday waad ku rafaadaysaa wuxuu quraanku dhinac kale noo tilmaamayaa dad ciyaalkoodii ilaahay uu uga dhigay ilqabowsi iyo beer qabowsi والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إلهي عرورتنا وحنا نوغا دغتا القبوس نوغا دغ ان كو القبوسنا ولا شك كما جيرو qof kasto inaga mid amaanta inuu raadinayo cunug uu ku ilqabowsado shaki mal arintaasi haddaad waaqiceena fiirisan maanta aan ku noolahay waana waxan mawduucan nagu khasbay inaan ka hadalno waalidiinta badankoodu way yaqaanaan say ciyaalka u quudiyaan caana u siiyaan cunto u siiyaan dhar ugu xiraan iskuul ugu diraan u seexiyaan check up iyo caafimaad u mariyaan daawo u siiyaan cadar u mariyaan barfuum u mariyaan way yaqaanaan laakiin badankoodu ma yaqaanaan cunuga caqligiisa si loo koriyo cunuga diintiisa sida loo koriyo cunuga akhlaaqdiisa sida loo koriyo ma yaqaanaan waana arin xaqiiqo ah arintaasan marka waxaan rabnaa insha Allah inaan ka hadalno waxa kale ikhwaani cunug wanaagsan in qofka la siiyo laba sabab ay ku timaadaa cunug wanaagsan qofku inuu helo oo ciyaalkiisu u wanaagsanaadaan laba arimood midkood buu ku helaa mid gifti ah oo ilaahay bixiyo ilaahay wuu bixiyaa sababtoo ilaahay asaga cunuga hibeeya asaga tarbiyeeya cunug wanaagsan qofku uu siin karaa walidaalka waxaad arkaysaan qof iska dayacan oo cunug wanaagsan oo baari ah ilaahay siiyay tan labaadna waxay ku timaadaa tarbiyo cunugii la tarbiyeeyo oo wax la baro oo la barbaariyay ku timaadaa haddii sababtii hore aad weydid waad kasban kartaa walidaalka waxaad arkaysaan nabiyadii ilaahay sidoo ilaahay nooga qiseeyay waxay ku celcelin jireen ilaahay ciyaalka noo wanaaji nabiyullaahi ibraahim waxaad arkaysaa dhahaya isagoo ku celcelinaya rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin soo ku celcelinaya wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ilaahay aniga iyo caruurtayda inaan sanamyada caabudna naga foge fiiri wuxuu leeyahay ilaahay in caruur aan dhalo sanam caabuda oo gaala ah oo macsiyo samaysa iga ilaali markaasuu haddana wuxuu leeyahay in rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu salah rabbi oo caruurtaydii meel baan dajiyay salaadana way tukadaan si ay salaada u tukadaan ilaahay ha dayicin cunugi salaad buu tukadaa wuu wanaagsan yahay ilaahay ha dayicina adigu xifdi waxaad arkaysaa nabiyullaahi zakariya asagoo dhahaya suuratu maryam say ka sheekaynayso wuxuu leeyahay asagoo ducaystay marar badan oo ku celceliyay ayuu wuxuu leeyahay waj'alhu rabbi radiya ilaahay cunugaad isiisid cunug raali laga yahay ka dhig cunug wanaagsan oo baari ah oo aniga igu xiran oo warkayga maqla oo markaan dhinta ii soo duceeya oo ilqabowsi ah ilaahay iga dhig
ومد أمر البكتو عيستان وأدر كيسان إن ضدك وحى قبضا أي لعقت أبحن ينسعون قال له قدو عيو ساسي النبي إله كدو عيسين جيرين حتى أولي هي الصقو قيلنا يا إلهي أولي هي الصقو محراب كتاجنب وحولها إلهي وعرور طرية طيبة إلهي وإسي إخواني عيالك وناقو ذا مركا الذي إلهي وعيال وناكسن إسي عنق مركا ونشبا وإن أذوقنا كد داشي ساد عنقا كوكرين لهي ساكو تربيين لهي هدي عنق وينادو وأتسك ضيعضو إنه هذا ماشي أنا نجوقنا عنقي وان كوريني وينادي وان اسك ضيعني قال أن كسي دحديني سكول بان كسي دحديني هذا وحربنا إنه في عناده صورة كلمة وما صورة كلمة هين وهذا الوحيد جرا قبل يبعوحوها عربي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا القف قرد الضوء وحرته والله بدأ قعمات كحرته oo bad ku dhex tuurto oo dhahdi biyaha iska ilaaliyo haqooyin ma dhici karto inaad cunuga gaale iyo public school ku sii dhexdeeso tiraahdo diin fiicno oo wanaagsano ma dhici karto mid kalena wuxuu lahaa waman ra'a ghanaman fi ardi masba'atin qofkii ari ku raaca xoolo ku ilaaliyo meel waraabe iyo xayawaanaad wax cuno leh wanaama anha tawalla ra'yaha al-asad oo ka seexda cunugii حواليه قفك وراعي لباح يا ورابا قاضنيا عنقاga hadaad ka seexatid oo iskahil maantid waxa qaadanaya gaal iyo waraabe iyo balaayo dhan ba qaadanaysa idan موضوع hadaan guda gallo انصر لولدك قبل ان يولد عنقاga intuu sadalanin horta u gargaar sida u gargaaraysa عنقاga maalin buu hiila kaaga baahan yahay maalintu hiilada kaaga baahan yahayna waa maalinta aad hooyadii guursanaysid ama aabihii aad guursanaysid عنقاga maalintaas miftaaxa ugu horeeya iyo waxa ugu muhiimsan waa markaad guursanaysid عنقا waalidkii zawjo wanaagsan reer wanaagsan ka dhalatay quraankii taqaana عنقي tarbiyeyn karta inaad guursatid aabo wanaagsan oo quraankii yaqaan oo diintii bari kara cunugii inaad guursatid marka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida waxa uu yimid nin ka eed sheeganaya cunugiisa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay cunugayga aniga iima eka uu madow yahay fiirbal kaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa dhici karta wiilkaaga in uu u ekaaday oo uu ka soo siibmay xaaskaaga familigeeda معناه هذا وامحي reerka xataa gabadhu ka dhalatay ama ninka ku qaba ka dhashay cunuga waxay ku yeelanayaan saameyn bay ku yeelanayaan uu kalar ahaan uu ekaanaya dhaqan ahaan uu ekaanaya inac kasta uu ka shabahaya cunugu marka inaad cunuga fiirisid intaada guursanin ka hor cunuga dhali doontid inaad u boos raadisid oo dhahdi qofkan guursanay waa qofka ciyaalkayga aan raba inay la mid noqdaan inaad dhahdi waxa kale oo sunna ah qofku markuu guursado habeenka ugu horeyso arooska uu yahay inuu ducaysto ducadan waxay anfacdana nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam ducadu ku ducaysanaya waxa kamida xaaska in inta la qabto fooda meeshan timaha ugu horeysa inuu dhaho allahumma inni as'aluka khayraha ilaahay waxaan ku weydiistay khayrkeeda wa khayra ma jabaltaha alayhi iyo khayrka wixii aad gabadhan ku dul abuurtay wixii aad ayada dhex gelisay oo ku abuurtay khayrkeedan ku weydiistay cunugii baa kamida akhlaaqdii baa kamida cilmigii baa kamida dhaqankii baa kamida wax kasta oo ku jira gabadhan khayrkeedan ku weydiistay wa hada aad weyn wa a'uudhu bika min sharriha sharteedan ka magan galay wa sharri ma jabaltaha alayhi iyo wixii aad ku dul abuurtay oo gabadhan dhex gelisay sharteeda cunugeeda shartiisa akhlaaqdeeda sharteeda dabeecadeeda sharteeda wax kasta oo khuseeyo sharteedan ka maangalay waa xadiis Abu Daawud wariyay ducadii markuu qofku akhriyo oo xaaskiisii uu la dhaqmayo inta ayna labada qof waxba sameeynin inay hadana ducaystaan
والنبي حليه صلى الله عليه وسلم قفكم مركا وحاسكيس أتجي هضوره بسم الله مقع إلهي بانكو بالله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلهي والشيطان كان نقد داره وحد نسيسنا الشيطان ككد داره فيري وحد نسينا يسد أو عرورته وهمينكو أتجي أجو شيطان ككد داره النبي حليه صلى الله عليه وسلم هدي عنق لجو أرزقه أو عنق أي قلان شياطين إلهي باك إلاليه أو شيطان ما أدواده والدعاء أدوين والدين تبضن كودنا ويحقران واسكي ريستان أن نبى اللي يريد دعاء أنو مغلي مركز سو حالي حاس كاجا مركز أتجيسيد بسم الله ده سيهرت مير أوي مركز يا مير قبا مركي آدم يستند الحمد لله ده سوي يا تورقبا يا تورقبا معناها مير ما هيو مركي هرنا مير ما قبا مركي دمنا أود ما قبا مركز سو حي عنق مركي هرب الله قد علي حبار يو قيلو يو دجال يو إدي يو كدين ما هيو محل قسوية خير بقى لقسوية خير لقى مسوية لكن عنق أذكار لقط علي بسم الله لقط علي اللهم جننا الشيطان الدعاء ذي الله آخرية خير بقى لقسوية هداد أوقاتد عنق إنه على القلي هذا أوقاتد إن هذا مر والبأسوا علوش كدر أدعيس إن هذا أدعيس دعاء إلهي والشيطان كان كامن قليل إلهي والشيطان كان كامن قليل إن هذا أدعيس هذا مر والبأ اللوبين وأعجبني وحي أعجب قليل dadka walaalaha qaarkood markay uurka leeyihiin waad maqasheen waxay qur'aan u akhriyaan waxay leeyihiin cunugan waxaan rabaa inuu maqlo qur'aankan akhrinayo oo uu cunugaasu idageysto cunug caloosha ku jira qur'aan baa loo akhrinayaa waa loo ducaynayaa way mar walba adkaar bay akhrinaysaa saadarteeda dhaqaatiirtu maxay dhahaan gabadhu markay uurka leedahay inay xanaaqdaha laga ilaaliyo inay madax xanuun lagu abuuro iyo qayle inay gasho ha laga ilaaliyo dagaalka ha laga ilaaliyo waxyaabaha qaylada oo dhan ha laga ilaaliyo cunugaana loo danaynaya caloosha ku jira baa loo danaynaya cunugii marka uu dhasho oo saas uu u soo dhasho hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahayba waa inaad ku faraxdid sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay yahabu liman yashaau inaathan ويهب لمن يشاء الذكور قفكم ربنا إلهي وحوس يا جبر قفكم ربنا إلهي وحوس يا ويل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أما وحوس قدر ويل يجبر ويجعل من يشاء عقيما قفكم ربنا وحكاد يا مطلع ومطلع إن قفك المن لجودي ذا وامتحان إن كسبرتد إلهنا أدبريد إلهي وحليه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أبياشين يا عرورتينا عرورت هذا متك كون أكثر متقاني ما قرنا يسد ما يقال جبرة أيها اللي يقول لي بانه مريم بنت عمران جبر بيهاي واللي يقول لي بانه ما قعد أركتين بيلادها فاطمة بنت رسول الله جبر بيهاي عائشة جبر بيهاي هنا عكل مركز في رسيد ويلكي نبي النوح ويل بوها قال نمو كنت أنت أبي وعاسي عنقي قرآنك كقسيي oo nabi oo khadar iyo nabiyullaahi muusa ay soo marayeen wiil buu ahaa haddana waxaa loo dilay khawfan lian yurhiqa waalidayh inuu waalidkii dhibaa laga baqay waa wiil waa la dilay meeqee gabar baa reerkoodii liibaan iyo wanaag u horseeday meeqee wiil baa reerkoodii imtixaan ku noqday way badan yihiin marka inaad cunuga waxa uu yahayba inaad ku faraxdid wadamada muslimiinta qaarkood oo inagu aan ka mid nahay waa laga naxaa gabdhaha markay dhashaan لكن معها صح معها وإن لو فرح قبرنا مركز دش وحديع كرتا هداد قبرنا شدتكم إني وحي كليه مركز جورستيد ويل إعانة وأوي قبردي سو بني آدم معها سو حق مله سو أيضا لا مرة إلا إنه قبر إعانة سو الله مرة أن قبر بري وحي كل شيء إسبيتال بالقصة فيرية إسبيتال بكل شيء ولكن قبرنا قلنا ليس بنان كتاجيه وأوضا مسلمة وحصاب حي نيرسكي مركزي waxay tiribu yiri waa ka xumahay I am sorry wasan way dhaaftay way u tacsiideynaysaa maxaa qalbiga galaya gabadhii baa dhimatay ama cunugii baa dhintay haddana mid kala soo baxday sidii oo kale haddana mid kala soo baxay dhakhtarkii baa soo baxay markaasuu yiri waa ka xumahay wixii dhacay iska raali ahow waan ku dhagay waan ooyay markaasaan ku dhagoon yiri ii sheeg what's going on ii sheeg please ii sheeg markaasuu yiri xaaska ay gabar bay dhashay Soomaalidii
isbitaalka ku soo booqatay wayba mushxaradeenba saalima gabar baad u mushxaradaysaan sayda annaga wixii gabar iyo wiil ilaahayna siiyo wa alxamdulillah yahabu liman yashaa'u inathan wa yahabu liman yashaa'u dhukur aw yuzawijuhum dhukrana wa inathan wa isku mid wixii ilaahay ku siiyaba aduu ma qaybi sida ilaahay baa qaybiya cunugu marka uu dhasho oo uu banaanka yimaado waxaa la rabaa marka koobaad inaad ilaahay shaytaanka ka magan gelisid sidaad uga magan gelinaysaa waad garanaysaa maryam bintu cimraan waxay ku celcelin jirtay oo quraanku uu sheegay wa innii uciiduhaa bika wa dhurriyataha min ashaytaani arajiim xunuga inaad tidhaahdid allaahuma innii uciiduka bihi hadduu wiil yahay uciiduka biha hadday gabar tahay min ashaytaani arajiim ilaahay waxaan kaa magan geliyey cunugan shaytaanka inaad dhahdid waxyaabaha ay culimadu jeclaan jireen waxaa ka mid ah cunuga in lagu aadaamo dhegtiisa si kelimada ugu horeysa oo maqla ay allahu akbar u noqoto imaam ibn uthaymin markuu sharxayay xadiidka axaadiista aadaanka riyaad saalixiinka wuxuu leeyahay waxaa fiican in lagu aadaamo sababtoo ah shaytaanku aadaanka wuu ka cararaa waxaa sugan cunugu marka uu dhasho in taxniik loo sameeyo taxniiku waa maxay afka in loo geliyo timir wax macaan in afka loo geliyo ayaa sunna ah waxay leedahay caaisha radiyallahu anha xadiis saxiix muslimka ku sugan kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam kaana yu'taa bisibyaani fayubariku calayhim wa yuxannikuhum rasuulka caruur baa loo keeni jiray wuu barakayn jiray afkana wuxuu u marin jiray taxniik buu u marin jiray taxniikga waa timir iyo inaad wax afka u gelisid oo adigu aad cunuga anqarisid innagu waxaan dhihi jiray anqarin cunuga waa la anqariyaa waxa ugu horreeyood siinaysa xataa hadduu isbitaallada gaalada ku dhasho inaad la geshid xaaskaaga markay dhalayso oo aad ag taagnaatid oo haddii aad ka baqayso xataa dhiigga iyo waxaas iyo inaad gadaal baad istaagi kartaa marka ay dhasho inaad cunuga ducada ku akhrisid inaad ku aadaantid inaad taxniik u samaysid inaad gaaladu waxa ay ku sameeyaan inta ayna wax kale ku samaynin oo waxba la siinin inaad adigu u samaysid markaas kadib waxaa sunno ah cunuga in loo bixiyo magac fiican shiri waxaan oo dhan waa xuquuqda cunugu leeyahay markuu dhasho magac fiican in loo sameeyo imaam al-bukhari wuxuu wariyey saciid ibn musayyib xadiis dariiqiisa ku yimid aabihii buu ka wariyey aabihii inuu u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam anna abaahu jaa ila nabiy sallallahu alayhi wasallam faqaala wuxuu ku yiri masmuka magaca nabiga ku yiri magaca qaala wuxuu yiri xuzni baa la yidhaha waa murugo wey waa magaca aad u qaabdaran markaasuu wuxuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam qaala nabigu wuxuu yiri anta sahlun maya sahal baa tahay waxaan kuu bixinayaa sahal qaala wuxuu yiri laa ugayiru isman samaaniihi abi magac aabbahay ii bixiyey ma bedelayo ayuu yiri fiiri baa halkaas xuzni baa la yidhahdaa waa murugo sahal baa loo bixiyey waa qof sahlan oo wanaagsan oo tayib oo simbal ah wey oo qallayf iyo adayg iyo dhibaato aan lahayn wuu diiday marka ninkii wuxuu leeyahay saciid ibn musayyib famaa zaalat alxuzuunatu fiina bacdu murugadii weli way nala socotaa fiiri aabbihii baa diiday soo ma ahayn familkii oo dhan bay ku faaftay carruurtiisii baa ka dhaxlay imaamu xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay markuu xadiidkaa sharxayey waxaa laga wadaa buu leeyahay yuriidu assucuubata fii akhlaaqihim wuxuu ula jeedaa akhlaaqdooda adkayd oo dhib ahayd dad waxay noqdeen adag oo murugaysan oo akhlaaqdoodu ayna fiicnayn sababtoo magacii bay ka qaadeen fiiri xadiid kale nabiga sala allahu alay wasalam waxaa sugan inuu yidhi maalmaha ka mida xadiidkan bukhaari iyo keyrkii buu ku sugan yahay aslamu saalamaha allah qabiilka la yidhaahda aslam waa nabadgelyo fiiri aslam waxa weeye waa nabadgal way nabadgaleen magacoodaa saasa markaasuu nabigu wuxuu yihi saalamaha allahu ilaahay baa nabadgeliyey fiiri ilaahay ha nabadgeliyo magacoodaa nabadgelye ah soo maha ilaahay ha nabadgeliyo wagifaarun reer gifaara gafara allahu laha ilaahay ha u dembi dhaafo fiiri waa dembi dhaaf ilaahay ha u dembi dhaafo wa cusiyatu reer cusiyana waa caasinimo waa reerkii caasinimada casat illaaha wa rasuulahu ilaah iyo rasuulkiisay caasiyeen waa xadiis bukhaari u wariyey
fiiri magacii baa qofkii saameeyey oo dhib u keenay markaasuu xadiid kale imaam al-Bukhari uu wariyey nabiga sallallahu alayhi wasallam Suhayl ibn Amr markuu u yimid bay'atul Hudaybiyah sulhul Hudaybiyah heshiiskii Hudaybiyah nabigu muxuu yiri nin baa loo soo diray arrintii isku murugsan oo dhib ah ninka waxa la jiray Suhayl ibn Amr nabiga waxa la yiri Suhayl baa noo yimid markaasuu wuxuu yiri qad sahala lakum min amrikum amarkiini wuu idin sahlanaaday fiiri waa cunuga magaciisa ikhwaani marka qofka magaca loo bixinayo cunuga saameyn buu ku sameeyaa hadaad cunugaaga u bixisay Maxamuud wuxuu noqonayaa cunug la mahadiyo wanaagsan hadaad u bixisay Cabdurrahmaan wuxuu noqonayaa cunug naxariis badan hadaad u bixisay Cabdullah cunug cibaado badan hadaad u bixisay Cabdurrazaaq cunug risqi wato Ilaahay u arzuqo hadaad u bixisid Xaliima hadaad u bixisid Maryam hadaad u bixisid Aisha hadaad magac fiican u bixisid cunuga wuxuu helayaa sifo fiican marka waa inaad cunuga magacaad u bixinaysa macnihiisa inaad ka fakirto hadaad u bixisay Yurub maxay dhahaan Sterling Berlin waa magacyadeena qaar baa waxaad arkaysaa niman magac la dhaho alla yaabays cunuga waxa leeyahay lugay gacame ilay waxaas maxay tahay waa la habaaraya hatta intii dhibkii uu qabay balaaya ugu sii siyaadays waa cunug habaar la habaaraya magacyadaas oo dhan magacyada Soomaalida maxaa dhigi jiray waxaad maqlaysaa magac qofkii intaasoo magac waxa loo bixinayaa xun ah oo fiicnayn marka cunuga magac macnihiisu fiican yahay in loo bixiyo hadda wadankan waxa ku badan oo inaga nasaameeyay magacyadii gaalada iyo muslimiinta u dhaxeeyay baa la raadinaya fiiri waxa la leeyahay cunuga ha loo bixiyo magac gaal iyo muslim wuxuu yahay aan la garanayn waxa loo bixinayaa marka waxa loo bixinayaa magacyo sida Saara oo kale sida Aaram oo kale sida magacyadaas oo kale waxa leeyahay gaal iyo muslim wuxuu yahay lama garanayo laakiin hadaad u bixisay Cabdurrazaaq Cabdurrahmaan Cabdulqaadir hadaad u bixisay Cabdulfataax hora laga garanaya Maxamed magacyada muslimiinta laga cararaya dad Maxamed la yiraahdo Mow la baxay waa ogtiin yalla bixin magacii muslimka ka cararayaan Muusa waxa leeyahay Muusaas xagee waxaas ka yimaada Ibrahim Abraham marka magacii muslimka laga cararaya وكذلك قبليه واساس وكلا مركع عنق إن لا بحية مقع مسلم أو مقع وناكسن وحان اللي أقاذي إخواني عنق مقع الله بحيه دتك مقع عاصل وجع على هذا إذا كو في صدى وحجعلها قفل بدتك اسكو مقع عيه صما وجعلها دايركت أضل ويرا هذا مريم ضد مريم اللي يرا هذا قف كسر مريم اللي هو جعلان يسا وتأثير كمقع سميوي إن إخواني waxaa kale oo cajiib ah cunuga la rabaa cunugu markuu dhasho in aqiiqa loo sameeyo waa wanqal in loo sameeyo haduu wiil yahay in la gudo sida sunnada ah in la gudo in mar walba cunuga aad joogtaysid inaad ku akhrisid adkaarta iyo ducada inaad ku akhrisid adkaartaas nabiga sallallahu alayhi wasallam way ka sugnaatay inaad cunuga yarka labadaada gacmood aad ku akhrisid qul wallahu ahad سورة الناس سورة الفلق جركي سأتكم مسحدين نبي حسن يا حسين أيو انتو سواقبتو ديجري أعيذ بكلمات الله تامات أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذ كمان ويسقنات وحن إذن كم قلنا يا إلهي شيطان يا البني آدم يا وحك استوحن ayaan ilaahay idin ka maangeli inuu ku celceliyo qofku oo cunuga mar walba uu duceeyo intaas kadib cunugii fiiriya ducada oo akhrisay wuu dhashay sunnadii baad raacday magac fiican baad u samaysay waad u wanqashay ilaa uu cunugii soo gaaro waqtigaad korin lahayd cunuga markaad soo gaadho waqtigaad korin lahayd mas'uuliyad ka saaran ilaa 2 sano intuu ka gaarayo cunuga ولا كولكوليايا وعنق وحما برت واد ogtiin wuu yar yahay 2 sano cunugu markuu gaaro waa inaad cunuga ku dadaashid inaga cunuga intaan ihmaalino iska dayacno ayaa markuu weynaado baa lagu dadaalayaa lama qaban karo cunug weynaaday lama tarbiyeyn karo maxaa la rabaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis buu wuxuu ku leeyahay inna allaha saa'ilun ilaahay wuu weydiiyaa kull rajul min kasta amma istar'ahu wixii uu dhiibay حفظ إنه إلاليي
أم ضيع أما إنه ضيعي حتى يسأل الرجل عن أهل بيته إلى نينك لو ويديو خير كيسة عرورت هذا والو ويدين مد لو ويدين حاسكا والو ويدين يا مركا وأمانة عيالكم waxaan idin weydiinayaa su'aal haddii maanta lagu dhiibto boorso dahaba waa amaano waxaan xaqiiqa in adduunku kula yaraan lahaa meesha dhigi lahayd Soma waad ku rafaadi lahayd qari inta dhig meel baad aamin ageli guriga ha ka bixin ilaali war cunugii aad dhashay baa ka daran oo amaano ah boorsada dahabka iyo diamondka cunuga dhashay ayaa ka amaano badan oo ka adag marka waxa la rabaa cunuga inaad ilaalisid markuu yar yahay inaad korisid hadal waxaa jira gabay oo ahaa ina alghusuna idha qawamtaha i'tadalat wala yalinu idha qawamtahu alkhashab geedka markuu soo baxo oo uu yar yahay hadii la toosiyo wuu leexdaa laakiin geed weynaaday lama toosin karo wakadalika cunug waa saas oo kale wuxuu leeyahay qad yanfacu al-adab al-ahdatha fi mahal cunuga yarka edabtu way anfacdaa وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب نين عرهله إذا ما قاطو بل أدو نين قوسار أو 20 سنة جرا أما 8 سنة جرا أما 10 سنة جرا تربية ما تربيين كرت يتمرد عليك وكون ما حد كان يا ما قبن كرت لكن عنق يركعه وقبن كرتا وتربيين كرتا ولذلك السلف كي وحيد يجرين عنقاقا لاعبه 7 تضبط سنة عنقاقا لا عيار وتضبط سنة أو يريه عيارسي وأدبه 7 تضبط سنة أدبي وتضبط كحكتا وصاحبه 7 تضبط كلنا لا صاحب وفي رصد تضبط أقوه الرئيس والله عيارد والنحريس ووالد نمو تضبط كحكتا وأدبين تضبط كحكتنا وصاحبتي النمو إنه تضبط قدام بيسي أو صاحبتي النمو ده أهيد أيان رنا إن العنق يسي عنق لبدير أنا كنترول أون دلو أون خصبنا أون وحكست أرمينا كدادعنا كما دادعين كرو ولذلك يا إخواني العنق عمريجيسا وحيابها أقوم مهم صنوحا كمذا لبصانو عنق مركا أوجيرو إلا أو كجارة 8 سنة والله في رصدا لبصنا عنق مركا أوجيرو وحي علماء دلوترين ابن 2 لبصنا عنق جراء وعنق marka uu ugu horeyso oo uu kaco uu soconaya waxbuu jiidaya waa taqaan ciyalka waa aragteen waxbuu jiidaya maanta dhan wuxuu rabaa inuu wax wadwado waxay sameyn jireen waxa loo gadaa wax weyn oo ku ciyaaro maanta dhan uu jiido oo uu riixso u karo meel weyn oo banaan baa la geeyaa soo u dhacdhaco u ordo oo socodka u barto waa ibnu 2 fiir waa lagu dadaalayaa marka uu gaaro 2 sano iyo bar markuu cunugu gaaro waxay dhihi jireen waxa la yiraahdaa sayyidullah waa marka ciyalku ugu madaxa adag yihiin dad u fiirsataan wax kasto dhahdo wuxuu ku leeyahay maya no buu ku leeyahay kuwa hadda meeshan jooga waxay yaqaanaan no kaliya wuxuu ku leeyahay no ma rabo caana ma rabtaa no biyo ma rabtaa no ma seexanaysaa no dadka haysta ciyalka u fiirsan 2 sano iyo bar cunuga jira maxaa la sameeyaa waa ina tarbiyeys maxaa ku tarbiyeynaysaa waxay culimadu dhahaan كلمات كسته أو يس يا نو نعم أما لا لوجد جواب ما بلا ويدية فير لما ويدية وحارتا إنا تسيس جوس إنا سيسد وحلال هاي جوس كميان كوبا ديام سوا كويا ريا مش عادي له جوس مرة بتاع وحقولي مرة مركز هو وحقولي هاي إيه يرى أو يرينا مركز ساحشة اللي جارو ما حد ساحنا يسا ما سهل ساح كدي بعد ساحنا يسا وحقولي هاي هل ساح كدي بعد ساحنا يا هذا ما ساحنا يسا وحقولي هرد ما يسا نو مرة وين ساحده waxaa la yiraahdaa kale cunugaas waxaa laga ilaaliyaa in guriga laga maqlo kelimada maya hooyadu inay aabaha maya ku dhahdo la inuu maqlo no inuu maqlo kelimaankaas dhan waa laga ilaaliyaa marka cunugii wuxuu aadayaa dhinacii kale wuu fiicnaanaya xataa laba amarka waa laga ilaaliyaa inaad dhahdid bax qolka aad lama dhaho waxaa la dhahaa nakeen qolkan aadina uu ku raacaya fiiri waa cunuga markuu 2 sano iyo nus markuu 3 sano gaaro cunuga waxa la yiraahdaa waa marka cunuga uu ugu caatifada badan yahay fiirsada 3 sano markuu gaaro cunugu isbedela wuxuu isku bedelayaa inuu hooyadii maanta oo dhan hooyadii inuu agteeda fadhiyo oo uu la sheekaysanaysaa wuu maqlayaa uu ku dhageysanayaa qisooyin hadaad u sheegto wuu maqlayaa ilaa uu ka gaarayo 4 sano
waxay dhaheen culimadu waxay dhihi jireen waqtigaas cunuga waxaa ku dhalatay wax la yiraahdo thawratul aatifa waxa weeye amal waxa waa inagoo niri oo kale cunugii wuu qarxaya asaga dhanba wuu dilaac cunugu isbedela wuxuu isku bedelayaa inuu hooyadii maanta oo dhan hooyadii inuu agteeda fadhiyo oo way la sheekaysanaysaa wuu maqlayaa wuu ku dhageysanayaa qisooyin haddaad u sheegto wuu maqlayaa ilaa uu ka gaaraya 4 sano waxay dhaheen culimadu waxay dhihi jireen waqtigaas cunuga waxaa ku dhalatay wax la yiraahdo thawratul aatifa waxa weeye amal waxa waa inagoo niri oo kale cunugii wuu qarxaya asaga dhanba wuu dilaacaya wuu koraya marka dareenkiisa caatifada ahaa baa koraya jacayl badan ayaa gelaya cabsi badan waa aragteen cunuga 3 sanada jira wuu oohin badan yahay maxaa keenay oohinta badan mugdiga uu ka baqaa bahalada uu ka baqaa dadka dhan uu ka baqaya waa marka ugu horeeyo cunugu uu barto inuu hooyadii iyo aabihii wax ka qarin karo hadduu wax xasayo inaan la heli karin markuu 3 sano jiro maxay salafkii samayn jireen waxay dhihi jireen cunuga markaas kale maadaama oo caatifad uu leeyahay waxay u sheegi jireen sheekooyin cunuga jacayl gelinaysa sheekooyin ku saabsan jacayl waalidka iyo ciyaalka isjecel waalidka naxariista badan ciyaalka naxariista badan baa loo sheegi jiray waxa looga sheekeeyay naxariista ilaahay waxa la dhihi jiray xagga fariiso waxaad ku celcelisaa ilaahay wuu i arkaa ilaahay wuu i fiirsanayaa ilaahay baa weyn ku celceli allahu akbar subhanallah ku celceli waa la barayaa markuu cunugu 4 sano gaaro fiir tarbiya ku socota cunugu wuu isbedelayaa haddana muxuu isu bedelayaa thawra la yiraahdo thawratu suluk buu qaadanaya dhaqan buu sameynaya dhaqan cunugii ooyay shalay oo cararayay waxaad arkaysaa koobka uu ka darbaynaya uu laadaya wax kasta uu jabinaya wax kasta uu ku ciyaaraya gurigu burburinaya waa marka inaga ciyaalka aan lugta ka xirro waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed cunug waxay wadataa 4 sano jira amal silsilada ugu xiran ay baad moodaa way jiidaysaa waa aragteen way jiidaysaa waxaad arkaysaa kuwo laba qaban karo say iyaduna u celinaysay oo ugu qaylinaysa cunugiiba gacantu ka baxaya waxa la yiri cunugu markuu intaas la eg yahay oo dadka caruurta ka hadla waxay dhahaan cunugaas oo kale waxaa lagu tarbiyeeyaa oo lagu barbaariyaa in uusan amar adag looma sheego haddaad ha samaynin ma dhaqaaqi kartid fadhi ma yeelayo waa inaad marka mashquulisid cunugaas marka suluuka cunuga markuu kor u kaco oo sanadka 5aad uu gaaro cunuga wuxuu gaarayaa marxalo kale oo la yiraahdo thawratul aqli buu bilaabaya وعيالك وارتين مركي 5 سنة قارن ومركي ugu reey fakaraya cunugii waxbuu fahmaya su'aaluhu ma antoona su'aaluhu weydiinaya wuxuu leeyahay asaga su'aal gabadha walaashii su'aal ka weydiinaya cirku su'aal ka weydiinaya wuxuu dhici kartaa inuu ku yiraahdo hooyo chicken baa tustay muxuu yahay waxaan chicken waa chicken xagee uu ka yimid ukuntaan cunasay chicken u noqotay haddaad hadid aad istiraad u sheeg uma sharxi kartid qaar baa waalidiinta waxay leeyihiin oo midaan cunna waa la duray marka ilmo ma noqoto gaas wuxuu ku leeyahay meesha laga duray itus waa kun iyadoo dhan duuban xagee laga duray uma sheegi kartid maxaa la sameeyaa waxaa la isku dayaa cunuga researchka in la bar sida wax loo baaro waxaad leedahay kitaabaa loo soo gadaa buugaag baa loo soo gadaa cilmiga ka hadlaya waxaad leedahay markuu ku weydiiyo kaalay waan baaraynaa qolkaaga maktabada ageel librariga geli waxaad tiraahdaa kitaabka intaad u kala bixisid ii qabadhe uu qabanaya waad rogaysaa markaad meesha soo bixisid oo kuntu waxay ka samaysan tahay waxaas u sharaxdid wuxuu iska dhigayaa inuu asagu fahmay laakiin haddaad been u sheegtay ama wax walba tiraahda anaa aqaana wuu ku fahmayaa hadduu ku fahmay inaad ciyaarsiinaysid oo beensiinaysidna kuguma qancayo ولذلك مركز وكلا ومركي دي جيرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنق حتى إذا كوال ويديستا وحي صلى ما تابته مركشان سنة قارو النبي صلى الله عليه وسلم عانا الله كان يوع عبي ويل يربى ميدك تيسفت ليي نمان أضيال أنا ويفت ليين مركزو النبي صلى الله عليه وسلم وحكو يري ما إيد ما يسائنا نمان كواوين سيا وعنق ير مركزو وحي كوما إدميو وعنق باور باستعماله يا عنق يركع كوما إدميو مركزو النبي وحي وايها قاضو حسن النبي صلى الله عليه وسلم ويل كيسي أيام ما هل تمر أقاطع أو صدقاء أفكو قليه النبي حكوية كخ أخ طف مركز سوي وطفي سوي مياذن أجين إننا صدقاء النوب بنانين أو صدقاء أنان عنين وريزن فيري
buuriisan garanaya wuu sheegaya waa in loogu diiday waa inaad u sheegtid haddaad tidhaa ha taabanin muxuu samaynayaa wuu taabanayaa innaga maxaan samaynaynaa suusa u taabanna waan xiraynaa lugtaan ka xiraynaa sariirtaan ku xiraynaa ma soconayso waa inaad cunuga u sheegtid ood ka dhaadhicisid markaasoo kale markuu cunugu 6 sano gaaro cunugu wuxuu gaarayaa marka la yidhaahdo التمركز على الذات marka naftiisa buu ku fakaraa inta badan wax kasta anaa le waa in aniga ciyaalka la igu jeclaado waa inuu wax kasta asaga guriga ugu khatarsan waad aragteen ciyaalka marka 6 sano jiraan wuxuu wax kasta inuu asagu leeyahay 7 sano markuu cunugu gaaro iyo 8 sano iyo 9 sano waa 3 sano oo cunuga ugu muhiimsan noloshiisa ilaa 10 sano 4 sano 3 sano oo 7 iyo 8 iyo 9 ah waxaa la yiraahdaa cunugu 3 darajo mara mid waa ta'ammul inuu fakaro cunuga ciyaalka 7 sanadii way aamus badan yihiin nabigu muxuu yiri saan uga faa'iideysano muru awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u 7 7 sano markay jiraan waa cunugu fakaraya qalku isku soo xiraya kaliya fadhiisanaya waxa tiraahdaa tuko salaada u sheeg fiiri salaada u sheeg ilaahay ka cabsade ilaahay cabsiisa uga sheekee ilaahay uga sheekee awoodiisa wuu fahmayaa markuu 8 sano gaaro cunugu wuxuu sameeyaa marxalatu tajrubadu waa maxay inuu isku dayo wax kasta inuu asagu baaro oo uu fahmo waxa leeyahay icaawi marka ila shaqee inuu kula shaqeeyo cunuga hadaad ariqalaysa xataa aad haraga ka bixi adiga iqaqabo inaad dhahdid waxa sameeynaysa guriga inaad tiraahdo kilin gare markuu 9 sano gaarana cunugu wuxuu sameeyaa wax kasta inuu yaqaano isku dayaya wax kasta xataa adiga wax kale waa khaldan tahay waa cunugu marka ugu horeysa waalidka uu ku dhawaad khaldan tahay wuxuu ku leeyahay no it's not like that mami it's not like that hooyo saas ma aha aaba saas ma aha saas weey ana iskuulka saasaan ku dhigtay cunugii wuxuu sameeyaa wax kasta inuu yaqaano iska dhigaya waa inaad marka taqaanid cunugaaga saad ula dhaqantid ikhwaani 10 sano markuu cunugu gaaro waa markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam cunuga salaada ku dila oo ku khasba maxaa laga wadaa xikmadda ku jirto waxa la yiri waa marka cunugu uu raadiyo al-istiqlaaliya inuu madax banaanaado banaanka inuu aado inuu saaxiibo samaysto inuu guriga ka baxo waa marka ay bilaabanto teenage-ka meesha ugu horeysa ciyaalku ay ka soo galaan hadaadan cunugaaga 10 sano maalintuu gaara gacan ku dhigin waliga gacan kuma dhigi kartid ha ku fakirin uu ka gacan baxay 10 sano markuu gaaro waa inaad mas'uul ka noqon kartid waxaan marka galaynaa mawduuca qaybta ugu dambaysa ugu dambaysa oo ahayd cunugii markaan inta ka soo sheekaynay oo 10 sano uu gaaray raganimadii baa ka muuqata wiil yar buu yahay waa arteen dugsiyada maanta oo muruqooday fiirnayaan 10 sano u jira gabdhaha maanta oo make up ay sameynaysaa way isqurqurxinaysaa way labisanaysaa way timay deysanaysaa waxay iska dhigaysaa qof dumar ah weynaaday bas ka dhigaysaa way hana qaaday cunuga markaas oo kale waxa la rabaa inaad taqaanid saad cunugaaga ula dhaqmi lahayd dhaqanka cunuga marka aad kula dhaqmaysid ayaana wax yar insha Allah ka sheegaynaa waxa dhaqankaas kamid ah horta waad aragteen ciyaalka 7 sano markuu gaaro waa inuu cunugaagu hadaa tahay qof fiican ugu yaraan waa inuu yaqaan juz quraan ah sida loo tukado adkaarta la akhristo sida dadka waaweyn loo ixtiraamo waa inuu wixii wanaagsanaa garanayo oo cunugaaga aad la hadli kartid dad baa ku soo booqday inagu waxaan naqaanaa cunugii waa la cayrinaya ama waa lagu qaylinaya waa la canaananaya asaguna maanta uu ku rabshaya hooyooyinka waa aragteen markay telefoonka qabsato uu qasaya laakiin haddaad la hadli kartid oo dhahi kartid aabo ama hooyo dad waalid ah noo yimid waa ehelkeenii waa adeerada iyo eedooyinka waxay rabaan inaan ixtiraamno ixtiraamka ay igu leeyihiin waa inaan u sheekeeyo adigana ixtiraamka ay kugu leeyihiin waa inaad ixtiraamtid oo ka aamustid oo biyo u keentid oo shaah u soo karisay aad dhahdid cunugii isxil qaamaya haddaad laakiin ku dhahdid wariyaa dameer yaho wariyaa doqon yaho wariyaa saqajaan yaho wariyaa tuug yaho wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu tuug yahay wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu dameer yahay xataa si dameeruhu u qaylinaya bay culimadu dhahan wuxuu iska dhaadhicinayaa wax kasta oo ku dhahdid xataa uu ku xadaya cunugii uu ku xadaya marka dhaqanka cunuga lagu dhaqmo waxa kamid ah ikhwaani mar kasta waa arrin inaga naga maqan
cunuqu wuxuu leeyahay xaqu ducaa in loo duceeyo fiiri inna cunuga u ducaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo anbiyadii ilaahayba waxa ka sugan inay carruurtooda u ducayn jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri saddex duco waa la aqbalaa shaki male waxa kamid ahayd dacwatul walidi liwaladihi waalidku ducada uu waladkiisa u duceeyo cunugaaga waxaad ducadaad u ducaysid waad garanaysaa ninkii quraanku sheegay suuratu ahqaaf markuu koray oo ilaahay uu nooga sheekeeyay oo uu gaaray 40 sano oo koray oo uu aqli yeeshay oo uu gaaray awood yeeshay muxuu yiri wuxuu leeyahay rabbi awzicni an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إلهي عرورتي وناجي فيري إنا تكتب إلهي عرورتي وناجي إلهي عرورتي وناجي إنا دهني النبي الله إبراهيم وينيجي شيء إنه ديجري ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إلهي أني عرورتي إذا كوا سلادة كذا نقدك عيالك ويكون مغليان إنا ضد عينيس ويكون مغليان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وعيالك سؤد عندري وحاكم ذا حسن إنه كله جري اللهم إني أحبه فأحبه إلهي وأن جعلها أذونا جعلوا بخاري باوري رواية كل بخاري وري وحليه حسن يا حسين بوحكل جري اللهم إني أحبهما فأحبهما إلهي وأن جعلها أذونا جعلوا إخواني ثيرية تصور عنقاقة oo adiga aad ku leedahay ilaahay waan jecelahay aduguna jecelo seebu dareemaya 12 sano jira 13 sano jira seebu dareemaya saada farax buu dareemaya cunugi waxay warisay xadiis imaam ahmed uu wariyay salama waxay leedahay markii la xuseen waa la dilay ayay way calaashay markaasay waxay tiri ma waxay dileen xuseen markaasay ka sheekaysay markaasay waxay tiri maalin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam faaduma u timid faaduma waa gabadhiisi markaasuu wuxuu ku yiri ina adeerka iyo labadiisii wiil ii keen waa ali oo ninkeedii iyo labadeedii wiil xasan iyo xuseen way keentay ayada wada labada wiil say nabiga u jeclaayeen waa aabahood amal waa awowgood markay arkaan oo xagga ay arkaan isagoo soo socda arabkay u soo bixin jireen soo u shumiyo fiiriya عربكي وسو بخين جيرين انتي سو قسلان سو شوميو النبي صلى الله عليه وسلم وعيالكيس عمل markay u yimaadeen nabigu go'bu qaatay ama buste maru qaatay maradii buu isku daday faaduma iyo ali iyo labadii wiil buu ku daday shantoodiiba gacantuu ku qabtay gacantii kale u taagtay markaasuu wuxuu yiri allahumma ahli ilaahay reerkayga fiiriyabal adhib anhum ar-rijsa إلهي وسخذ يدباتذا كدلقات وطهرهم تطهيرا إلهي وطاهري صدح مر اللهم أهلي في ريبل اللهم أهلي إلهي وأهل كيغا حمانتك قاط أو طاهري صدح مر ومسلمة وين مصيرته وحيتري رسولك إلهي أنوسو أهل كاغا مئه رسول النبي يقول يري هاي أذونا بستها صوقل دعادي بكو أخري وحاك الله إخواني قضب كلمات عنق إن هذا حبارين وذكرتين والدين ولبا أبياشة وحد يكتين عيالك حباران خويين كان إسكاب دابا وحيابها السجن النبي وحكمه صلى الله عليه وسلم إنه ديجري حديث صحيح مسلم كقصوجا لا تدعوا على أنفسكم نفتينها حبارنا أظن نفت هذا حبارين الله قبل ما يجي بلايا يقول عضيي هوجي يجي حدهن هاي حبارين ولقى هاي حبارين ولا تدعوا على أولادكم عرورتيننا هبارنا عرورت هذا هبارين هدين بلايا كوجد عضي عرك اللقوقات بلا كضفتي سام الله كوجل هدين ولا تدعوا على أموالكم مالكيننا هبارنا بابور كاجا يجوري كاجا جوري كان باس بانعي بابور كان باس بانعي هدين والنبي صلى الله عليه وسلم لا توافقوا من الله ساعة ساعة هداد ساعتها وافقنا يسأل فيها عطاء إلهي وحلوي ديستو وقت إلهي وحلوي ديستو فيستجيب لكم مرك الدعاء وإذين أقبليا هبارك وكوقبنا يا إلهي وحاتري إلهي وكم بلايا كرد بلايا كن عايز ولا شك يا إخواني مرك عيالك وي ديانا وحيدها دوكسيغا معلم هدي هو يدي حتى يقدر درنتها هدي هبارتما يقول عيسى فيري حتى هدات كقر درنتها أضوء
haddaad habaarto cunuga way ku dhacaysaa xataa hadda aduu ka khaldan tahay hadduu asagu khaldan yahay iska badaaba weligaa cunugaaga ha habaarin inaad u kasta ma ahan haddaad aragti balaayo hadda inaad ku dhacdo oo balaayo dafta habaar haddii kale ha habaarin ikhwaanii waxaa kale oo qofka muslimka laga rabaa inuu cunugiisa ku tarbiyeeyo oo uu mar walba kula dadaalo in cunuga uusan cay barin balu fiirsada cay inuusan barin canaantana inuu ka yareeyo canaanta badan cunuga uma fiicna xataa hadduu khaladaad sameeyo waxay culimmadu dhahaan cunuga ugu yaraan 10 khalad markuu sameeyo 5 ka mid ah waa laga indhalaabayo waa la ilowsiiyaa haddaynan ahayn wax weyn oo macsiyo ah haddaynan ahayn nabiga kudayashaa noogu sugan walana fii uswatun xasana xaasaskiisa markay qaarkood war ka sheegeen war uu ku qarsaday caaisho wuxuu ilaahay ku soo dejiyay wayd asarra an-nabiyyu ilaa ba'di azwaajihi xadiithan falama nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd qaar buu u sheegay oo uu ku canaantay qaarna uu ka jeesay oo iska dhaafay fiiri xaaskaaga ciyaalkaaga waxa ay galaan inaad qaarkood iska dhaaftid oo is ilowsiis wax walba haddaad ku qabatid cunugii oo dhan uu khalkhalayaa kalsoonidii baa ka dhumaysa cunuga waxaa la rabaa inuu wax isku taraygareeyo inuu khaldamo inuu wax saxo haddaad wax walba tiraahdo ha samaynin cunugii kalsoonidii baa ka dhumaysa waxaa kaloo ka mid ah tadriibu tifli cala taacati mundu sigar cunuga asagoo yar inaad ku barbaarisid taacada ilaahay gabdhihi ayagoo yaryar xijaabka wiilasha ayagoo yaryar xishoodka quraan akhriska hadalka macaan inaad ku tarbiyeysid wayansha'u naashi'u lfityaani fiina waa hadal gabay buu ahaa wayansha'u naashi'u lfityaani mina calaa maa kaana cawadahu abuuhu wixii aabbihii baray ayuu cunugu ku barbaaraa wuxuu aabbihii baray maxaa laga wadaa cunuga wixii aad intuu yaraa maalintuu dhashay ilaa maalintuu 10 ka soo gaaray waxaad ku waday baa cunuga markuu weynaada ka soo baxaya ninbaa nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam saxaabiga wuxuu ku yiri xadiis bukhaariga ku sugan rasuulka ilaahay oo wixii aan samayn jiray xagee aadi doonaan nabigu muxuu ku yiri aslamta ala ma aslafta min khayr wixii khayraha ku hormaray waad ku dul islaamtay oo waad wadataa bal qofku wuu sii ziyaadanaya cunugi wuu ku badanaya wuu wadaya waligiis khayrkaas waxa kamida tashjiicuhu ala alkhayr cunuga khayrka in lagu dhiirigeliyo in cunuga dhiirigeliso وتراي قري قرآن بو أخري هديهن عرب كاغا حن ولقى سانا هيد أذوق الدمين باتهاي سكول كيبو امتحان قلي ودعي أما وحو كاني درجة هو سيسا دقالها كور كاني وحاد هذا وتراي قريسي نقص تلنا وكسر في عنان دونتا النبي صلى الله عليه وسلم لما ويل بقى يبن غزوة أحد لبدا ويل ويل اليريرة وحال كلي جري معاذ بن عفراء يا معاذ بن عمر بن جموح labadoodiiba waxay isku haystaan Abu Jahl anaa dilay nabigu soo dhiirigelinay fiiriyo wuxuu ku yiri seeftiina ma masaxdaan oo dhiigi ma ka tirtirtaan kaasay waxay dhaheen maya itusawiir uu fiiriye nabigu wuu fahmay mid ka dilay laakiin wuxuu ku yiri kilaakuma qatalahu labadiinuba waa disheen markaasuu ninka wixii laga furtayna wuxuu siiyay Mucaad ibn Amr macnaha isaga dilay way فيري عنق إلا يراهذا ما شاء الله واتراي قريسي وات في عنتهاي you did excellent قال هذا أفير صدا عيالك إنه عند الله ما هي ما أنت نقول ذا excellent very good واو عنق السيل الله وضو وسوها يستا إنه قالوا إنه نجي عليهن سمع إذا نعرف وحكولي هاي وحكسون سماي معلومات يسكولك excellent بيد هذا وحكسون سماينا هو يد قيلة كسر الرئيس معناه هذا وامع عنق وكنا عيا ما إن المركب عنق يرجلسي أو كان مقله كلمة يرجلينا إنه كان مقله وأرتن أنك مركب عيال كهين الدون كلا وحن وجد علان جري مركو أبهي إدها إله خير هسي أو إدها وفي عنته مركو وحيد درا أو إنتان أرض عن ساقبته وعودي جري ورما دحلات كسر قاضي يقول لي ما بقى ذا جارينه مركزان فرح جري مركزوا هذا وحوليه أذيك أرض بدل إيه ساقوا وأرض يسل إيه أمانه وساقوا بنيسا marka keentid wuxuu ku leeyahay ma sha Allah warniyaho hal minad ma aysan soo qaaday saadada maanta waan soo orday hadii cunuga dagaal ka hor keentid uu ku nacaya cunuga uu ku dhibsanaya
mar hadda waxba kuma qabanayo wuxuu leeyahay anyway dugsiyada saasay dhaan anyway wax walba on try gareeyo I will never get something so why do I care waa arteen maxaa iga galay aniga wax walba waxa leeyahay you fail waa dhacday baa leeyahay marka cunugii nafsadiisi kalsoonida ka dhumaysa in la tashjiiciyo marka waa fiicantahay lagu yiraahdo haddii ay dhacdo wala fiirsada inuu cunugu sameeyo wax xaq uusan u lahayn laakiin uu isleeyahay xaq baad u leedahay ma aha inaad la dagaashid waa inaad horta u sharaxdid inuu khaldan yahay inaad tustid waxaa dhacday maalmaha ka mid ah xadiis Imam Nasa'i uu wariyay wiil taabiciintii ka mid ah dhijri Qays ibn Ciyaad ayaa safka hore galay Ubay ibn Ka'ab ka soo qabtay fiiri seebu dareemaya cunugaas muu xanaaqay oday baa gadaal iga jiiday gadaal buu igay salaadii marka laga buuxo yeeray saxaabigan fiiriya gaasoo wuxuu igu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuuna amray inaan anagu ku xigsano caruurtuna ay gadaal maraan fiirso u tarbiyeenayo waan fahmay buu yiri maalintaasaan fahmay marka inaad dahdid waxaan dadka waaweyn baa loogu talagalay ciyaalka yaryarka ana looguma talagelin arintaasna kuma jirta hadda ogaada waxyaabaha xunxunka inagu maxaan sameeynaa bahalkan HBO iyo balaayay fiirsanaysa waxay leedahay hooyo waxa loogu talagalay dadka adaltiga adoo qolka gal musaxba ma ka yeelaya cunugaas markaad baxid buu asna try gareynaya isku dayaya inuu wixii arko laakiin haddii wixii wanaag ah dadka imaanaya waa dhihi kartaa waxaan waxa loogu talagalay dadka waaweyn adigana saana tahay hooyo laakiin inaad wixii u sharaxday cunugii waxaa ka mid ah ikhwaani cunuga الحنان والتقبيل عنق إن لا تنكضه أو جعيل كأركو إن الجعشة عنق أقولوا فهمه نبي فاضم ونكضي قبديسة أبو بكر قبديسة عائشة وشمين جري نبي ويلكس إبراهيم وشمين جري حديث بخاري غير كقصوغان ننكر غير باديها ويرى أنه عيال كان ما بدون كان نبا نبي وكو إنكره النبي صلى الله عليه وسلم عنق بشميي نبى يري طبعا ويل باندلا ولا جميت كم إذا مردون كانين نبي وحول هدينا حريصة إلهي كاسي بمحن كوقا بنكرا معناها ضوام حي وحديع كرت إلى الجيران والدين ولي عنق سأن وناك تسن وحكولي هي عنق عن بين طالما تصو ان وحنكسو ختمه يا اون ugu dambaysiinaya insha Allah cunuga intu yar yahay in la ciyaartid nabiga xataa ciyaal waxa tira uu biyo ku tufi jiray wala ciyaaraya biyo ku sayraya way qoslayaan iyaguna waxa la rabaa cunugaaga marka uu yar yahay inaad macallin fiican u geysid waxa la rabaa cunugaaga xataa markuu weynaado inaad ka harin gabadhaada markay qaan gaarto inaad ka harin xataa markay guursato inaad ka harin nabigu gabadhiisa Faaduma iyo Ali intuu albaabka ku garaaco ayuu wuxuu dhigi jiray wartukada oo kaca kafiiri ciyaalka say u madax adag yihiin waa gabadhiisi Faaduma iyo Ali markaasay waxay ku dhaheen cunugaaga markaad wax u sheegto wuxuu ku leeyahay hooyo qof weyn baan ahay I know what I'm doing iga daa waan ogahay waxaan sameeynayo saasay sameeyaan nabigii ku dhaheen ciyaalkiisi Faaduma iyo Ali baa waxay ku dhaheen markuu kaco tukada ruuxdeena Ilaahay baa iska laho qaatay markuu soo celiyaan kacayna fiiri قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بني آدم كو مدح أذكي هسوي ده يكتجي إخواني إن شاء الله وحنكسر ختمة يا إن أتكئل لسعون قالوا إنه كأركه وحد الشيء أذوق إن هذا السمينين فيني وحد السمينين يا وحد الشيء إن كل الدوانين وحد الحجاب كحراء إن أذوق حرت وحد السلاد التكو إن أذوق التكنيسي وحاتر القرآن كآخر إن هذا أذو آخر نيسي وحاتر السجار كإسكده إن أذو إسكده ينيسي إن هذا واحد الشيء أذونا أستميسد إلهي وحن كبر إنه ذرية صالحة نصيه نقدن كويننا ونهجاتيه والله يقول الحق ويهدي السبيل